waxaa la rabaa dadka reer Puntland ee caqliga u saaxiibka ah inay caqliyada ka shaqeysiyaan cidna lama qasbi karo hore wixii aanu shalay u diidnay maanta cidana nagu qasmayso ummadan sidii sanataladu sheegtay masiirkooda ka tashadeen shalay markay dhisayeen Puntland masiirkooda ka dhaxarkeen maanta tan oo la dhisayona masiirkooda ka dhaxarkeen qofna waxaanu rabin laguma qasbi karo SSC Khatuma oo jawaab culus siisay Puntland iclaamisayna dagaal ka dhan ah hogaamiyaha maamulka Puntland dani oo u baxay safar degdeg ah xilli ay u muuqateen dagaal culus oo kula jiro dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Sanaag iyo dawladda federaalka saartay amar degdeg ah oo la xiriira lagu haye iyo degmooyinka tirsan gobolka Awdal qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay inta aanu guda galin wararka SSC Khatuma iyo Puntland iyo dirirta gobolka Sanaag aan marka hore eegno dawladda federaalka oo saartay amar degdeg ah oo la xiriira lagu haye iyo degmooyinka tirsan gobolka Awdal oo Itoobiya looga cabsi qabo golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa arrinsaday xaaladda gobolka Awdal gaar ahaan arrimaha bini'aadanimo ee ka jira lagu haye Zeylac iyo tuulooyinka hoos yimaada kulanka oo gudoominayay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa looga hadlay sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu saameysay ee gobolka Awdal iyadoo warbixin ku saabsan saameynta abaarta iyo heerarka ay gaarsiisan tahay laga dhageystay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda Sodma kuwaas oo soo bandhigay waxyeelada abaarta ay gaarsiisay dadka xoolaha iyo wax soo saarka Xamza oo kulanka hadla ayaa faray hay'adaha dawladda ee ku shaqada leh inay u istaagaan wax ka qabashada xaaladda abaarta xooggan ee ka jirta deegaanadaasi iyo sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa bulshada iyada oo goluhu ee ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ah inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaartu saameysay ee ku dhaqan gobolka Awdal intaas kadib golaha wasiirada ayaa ansixiyay heshiis afgarada oo ay soo gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga heshiiskan oo ah mid muhiim ah ayaa taabanaya iskaashiga shaqada ee labada dhinac iyo shaqasiinta iyo horumarinta awoodaha shaqaalaha dhinaca kale golaha ayaa wasiirka maaliyadda uga mahad celiyay in uu ku guuleystay abaalmarinta wasiirka maaliyadda ugu wanaagsan qaaradda Afrika taasi oo ka turjumaysa horumarka uu dalkeenu ka gaaray hanaanka dib u habeynta maamulka maaliyadda Soomaaliya wasiir Biixi ayaa abaalmarintan lagu siiyay muddadii 2 sano ahayd ee uu xilka hayay taas oo uu ku hogaamiyay wasaaradda maaliyadda hanaan hufan isla markaana uu dadaal ballaaran geliyay dib u habeynta maaliyadda dalkan Soomaaliya ugu dambeyn golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay wasaaradda warfaafinta oo ku guuleysatay inay dalka ka hirgeliso warlalis casri ah media satellite teleport kaas oo u suurtageliyo warbaahinta qaranka inay tayeyso ayaa la yiri adeeg warbaahineed waxayna hadda u muuqataa in ay xaalad kale dalka lagu hawsi gelinayso sida dawladda ay uga hadlayso ee arrimaha gobolka iyo Somaliland oo hadda ay u muuqateen maamulka Somaliland oo si toos ah ugu fashilmay hogaaminta gobolkaasi iyo goonigoska u raadinayay dawladda talaabooyin ay qaaday dhinaca kale SSC Khatuma Puntland jawaab ay siisay waxayna ku hanjabtay inay isdifaaci doonto haddii sicdani weerar uu soo qaado maamulka SSC Khatuma ayaa jawaab adag ka bixiyay warqad ay soo saartay xalay Puntland taas oo ay ku sheegtay in aysan aqoonsanayn maamulka SSC isla markaana dhulkaas uu qayb ka yahay Puntland SSC Khatuma oo sheegtay in qadcas yahay in jiritaankeeda la geliyo muran ayaa nasiib darro ku tilmaamtay hadalka soo yeeray Puntland ee la xiriira didmada aqoonsiga ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn madaxweyne ku-xigeenka SSC Khatuma Maxamed Cabdi Ismaaciil oo qaar soo saaray ayaa si cad u sheegay inaan ciidina xaq u lahayn inay xaqirto dhismaha maamulka cusub ee socda kaas oo ay ku mideysan yihiin Maakhir iyo Khatuma waxaana nasiib darro ah qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland maamulka SSC Khatuma waa dawlad xubin ka ah hanaanka federaalka ee dalka ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka SSC Khatuma wuxuuna ku sii daray cidna laga aqbali mayo inay su'aal geliso jiritaanka SSC Khatuma Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay in qadcas ay tahay in muran la geliyo aqoonsiga ama jiritaanka SSC oo haatan isu diyaarinaysa noqoshada maamul goboleed rasmi ah oo ka tirsan federaalka Soomaaliya Puntland iyo shacabkeeda wanaagii walaalnimo ayaan u haynaa laakiin waxa qadcas ah ay ka tashiga dawlad goboleedka SSC Khatuma ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Khatuma jawaabtan ayaa imaanaysa saacado kadib markii maamulka Puntland uu gebi ahaan meesha ka saaray aqoonsiga maamul ee ka madax bannaan oo ka dhisan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyadoo ku celisay goboladaas ay ka tirsan yihiin dastuuri ahaan maamulka Puntland
war-saxaafad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa lagu eedeeyay federaalka Soomaaliya inay wado faragelin lagu wiiqayo xasiloonida iyo midnimada Puntland sida hadalka loo dhigay bayaanka oo ah kii ugu adkaa ee ka soo baxa Puntland tan iyo markii ay dowladda federaalka aqoonsi qaatumo ayaa si toos ah u qeexaya khilaafka qotada dheer ee ka dhashay mustaqbalka siyaasadeed ee deegaanada beesha dhulbahante Puntland ayaa si cad u diiday jiritaanka maamul gooni ah oo soo marin habraaca dastuuriga ah ee Puntland sida ay tiri waxay cadeysay in sida ku cad qodobka 7 iyo 138 dastuurka maamul goboleedka Puntland gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo dhulbahanta iyo guud ahaan beelaha dega ay si buuxda wax uga dhiseen maamulka Puntland sanadkii 1989 sida hadalka loo dhigay sidoo kale waxay ku eedeysay Villa Soomaaliya inay leedahay damac ah in ay burburiso amnigii dowladnimada ka jirta Puntland isla markaana ay doonayso inay fashiliso dagaalka ay Puntland iyo saaxiibada caalamka kula jiraan argagixisada caalamiga ah ee Daesh iyo Shabaab dowladda federaalka oo haatan si weyn isugu haysta arrinta hoggaanka Puntland ayaa dadaal badan gelinaysa dhismaha SSC qaatumo oo ay u aragto mid ay kaga adkaan karto Puntland SSC ayaa taabacsan Villa Soomaaliya iyadoo la filayo in deegaanada maamulkaasi ay ka aqoonsato ama ka qabsanto hanaanka doorasho ay riixayso Villa Soomaaliya waana waxa Siciidani uu ka cararayo in 10 xildhibaan dhulbaante ay halkaas aadaan haddana uu sheegay inay yihiin maamulkaasi dhammaan ku hoos yimaada Puntland ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Puntland Siciidani ayaa lagu wadaa inuu safar degdega uga baxo magaalada Garowe ee xarunta Nugaal isagoo tagi doona magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland sidaynu xogta ku helnay Dani ayaa halkaasi u tagi doona inuu ka dargeliyo howlgalka ciribtirka kooxda Daesh ee ka socda buuraha Calmiskaad ujeedka madaxweynaha Puntland ayaa ah inuu qaabeeyo iskuna dabirido wajiga afraad ee howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Daesh kaasoo guro weyn ka soo hooyeen ciidamada difaaca maamulkaasi oo haatan si isbaacsanaya fircadka argagixisada Siciidani ayaa hore u shaaciyay safarkiisa wuxuuna ballan qaaday inuu tagi doono furimaha hore ee dagaalka si uu dhiirigeliyo halganka ay ku jiraan ciidamada Puntland howlgalka ayaa haatan xoogiisu wuxuu ka socdaa nawaaxiga ceelka ee Rasaqan ee Togga Baalade halkaas oo toddobaadkan ay dagaal adag ku dhex mareen labada dhinac waxaana lagu beegsaday farxadka xubno ka tirsanaa maleeshiyaadka Daesh Puntland ayaa muddo dheer wada dagaalkan waxaana lagu xoreeyay dhul aad u ballaaran oo ay horay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka Daesh oo ku yaala Calmiskaad si kastaba ha ahaatee safarkan degdega ah ee uu galayo Siciidani ayaa ku soo aadaya xilli haatan mowjado siyaasadeed ay gashay Puntland iyo xiisad dagaal oo ka soo cusboonaatay dhanka gobolka Sanaag taasoo la xiriirtay dhismaha maamulka SSC qaatumo xukuumadda Puntland ayaa gebi ahaan meesha ka saartay aqoonsiga ay siiso maamulka madax bannaan oo ka dhisan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee waqooyiga dalkan Soomaaliya iyadoo ku celisay in goboladaasi ay sida Suuriya uga dhisan yihiin maamulka Puntland saaxiibayaal wanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka tan iyo kulan dambe waxa idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo